بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن داودي اللي دلهان تيمبا ملك استودو دافع عالم كان نجلس سعوتان وحال سوق ريا منتي أنو يدين سوى تابين شرني وأرك التلفزيون كعالم كرويال تي في وقت كان ستة وسيدين كجايمان دونا استوديو التلفزيون كرويال كله هي مقالة تنهر جيسة وأرك واحد اللي سعوتين يعني جو يحش إسماعيل قد بدأ ورك إنه وجود وركرون لأنه وحاكم ده مدحوينها دولة فدرالك Soomaaliya بروفيسور حسن الشيخ محمود ayaa jawaab ka bixiyay hadal dhawaan ka soo yeeray u qaabilsanaha qaramada midoobay Nicholas Kay kaasi oo ahaa in ay golaha baarlamaanku ay qaataan laaluush warkan faafayntiisa waxaa nooga soo diray magaalada Muqdisho wariyahayaga away war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku bilowday hadal u muuqday jawaab celin ku aadan war qoraal ah oo ka soo baxay wakiilka qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya Nicholas Kay kaas oo ku aadanaa in xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ay qaataan lacag laaluush ah war-saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu horreyn loogu mahadceliyay beesha caalamka iyo dhammaan inta gacan ka geysatay horumarka Soomaaliya waxa kaloo madaxweynuhu uu mahadceliyay ciidamada AMISOM iyo kuwa dawladda Soomaaliya oo ku dadaalay sidii gacanta dawladda loogu soo celin lahaa deegaano badan oo kamid ah gobolada dalka Soomaaliya oo ka maqnaa isagoo ka hadlay Xasan Sheekh Maxamuud shirar kala duwan oo ka qayb galay loogana hadlayay iskaashiga iyo dib u dhiska dalka Soomaaliya ayuu dalbaday in la xaq dhowro dhammaan natiijooyinka ka soo baxay shirarkaasi waxaan ku baaqayaa in la dhowro xuquuqda Soomaaliya ee madaxa banaan isla markaana uu qeexayo dastuurka federaalka ah ee ku meel gaarka kuna wajahan in dadka Soomaaliyeed iyagu ay go'aan ka gaari karaan masiirkooda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya waxa uu sheegay in dawladdiisu ay ka go'an tahay hiigsiga sanadda 2016 oo lagu wado in geeyo Soomaaliya lagu qabto doorasho madax banaan mar Mr Maxamuud uu ka hadlayay aragtidiisa ku aadan qaabka loo xalin karo khilaaf siyaasadeed ka dhaxeeya isaga iyo ra'iisul wasaare Cabdulle Sheekh Axmed Maxamed waxa uu yiri aniga oo fahmaya walaaca beesha caalamka haddana sida ugu habboon ee loo taageeri karo hogaamiyaasha Soomaaliya iyo hay'adaheenu waa in la xaq dhowraa lana ogolaadaa in la soo afjaro kala duwanaanta iyo khilaafka hadda ka dhaxeeya sharci dejiyaasha iyada oo la dhowrayo xuquuqda dastuurka federaalka Soomaaliya ku qoran ergey gaarka ah xogaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Kay ayaa sheegay inuu aad ugu walaacsan yahay khilaaf siyaasadeedka ka dhaxeeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Cabdulle Sheekh Axmed Maxamed Mr Kay waxa uu sheegay in khilaafkan uu qatar gelinayo dadaalka loogu jiro sidii loo gaari lahaa barnaamij siyaasadeedka lagu hiigsanayo 2016 kaasi oo ka qayb tahay in la qabto doorasho madax banaan sanadda 2016 ergey gaarka ah ee qaramada midoobay waxa uu sidoo kale sheegay inuu ka walaacsan yahay eedeemo sheegaya in qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya la weydiistay in codkoodu ay lacag siistaan haddaba sidee u arkaan arrintan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya waa kan Professor Maxamed Cumar Dalxa oo wax ka badan 10 sano ku soo guda jiray baarlamaanka Soomaaliya laakiin nasiib darro in mar waliba xildhibaanada ayagoo ra'yigooda iyo mabaadi'dooda iyo fikirkooda ay u madax bannaan yihiin inay cabiraan dalkana ay ku cabiraan waxa ayaga ee markaas xaq ay u leeyihiin ay tahay inay mooshin ayaga ay tahay waxa u adeegsan karaan wadadii wax ay rabaan ama inay ku saxaan ama inay kaga hortagaan inay dadka qaarkii mooshin dhanba ay u arkaan inuu yahay laaluush ma gartay oo micnihiisu ah wax lagu raadinayo waa nasiib darro madaxda dalka haddii ayada isqabato sharci baa kala qabanaya waa dhihi karnaa haddii nala siiyo awooddeena naloo daayo waxa la isku haysto baarlamaanka kaalay idinka soo dhexgala ee cidda khaldan ee waajibaadka ay kala leeyihiin dadka ishaya ee madaxda ah arrintaasi wax ka dhaha laakiin cid noogu soo sinta weli maba haynaba xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Aadan oo kulanka baarlamaanka kadib maanta la hadlay TV-ga Royal xafiiska Muqdisho ayaa aaminsan in Nicholas Kay uu ku xadgudbay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya bismillaahir rahmaanir rahiim waa maasantahay Royal TV sida aad la socotaan Soomaaliya waa dawlad xar ah oo independent ah xornimadeedana qaadatay 1960kii waa dawlad sovereign state ah marka waxaan oran lahayn no one can dictate to the Somali people nin u sheegi kara masiirkeenan anaga iskale anagoo gacanteena noogu jira hadalka Nicholas Kay oo ku hadlay waxaan leenahay yaa qariib kun adiib you cannot dictate to us what you are going to do this our country dhulkaan anaga iskale waxaan rabnaa anaga ka sameynayno wixii isqa qabsadayna waa jiri jiray waligiis baarlamaanka ayaa lagu kala bixi jiray si cadaalad ayaana loogu kala baxaya Nicholas Kay waa safiir safaaradaha kale kamid ah haddii lagu ixtiraamay oo ixtiraamka uu ka tago marka sidoo uu la dhaqmo dadka ayaa loo dhaqmayaa hadalkiisana looma dul qaadan karo Nicholas Kay waxaan ka rabnaa inuu evidence keeno in baarlamaanka wax uu ku sheegay ay ku kaceen
hadallada raqiiska oo ku hadlayna waxaan rabnaa inuu apology ka bixiyo oo rasmi ah haddii uu ka bixin waayo marka maxaa imaanaya waxaa imaanaya qodobka soo socda waxaan soo saaraynaa joint communique oo baarlamaanka iyo guddoonkiisa ugu dhan yahay waxaana ka codsanaynaa dowladda Soomaaliyeed oo baarlamaanka ugu horeeyo iyo fulinta in 72 hours ama 72 saacadood dalka looga saaro waayo looma dulqaadan karo hadallada raqiiska uu ku hadlay Nicholas Kay Soomaali baa iska leh madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhawaan ku gacan saaray isbedelo kooban oo ra'iisul wasaare Cabdulle Sheekh Axmed Maxamed ka sameeyay golaha xukuumadda madaxweynaha waxa uu sheegay in tilaabadaasi ay ahayd mid aan isaga lagala tashan isla markaana aan waafaqsanayn dastuurka Soomaaliya Aways Maxamuud Julcow Royal TV Muqdisho